mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku koray YouTube-kaaga ayaa ah in aad samayso thumbnail aad u qurux badan oo soo jiidasho badan. balse waxa ka horeysa qaabkee ugu sameeyaa taleefankayga anigoo isticmaalaya u sameeyaa thumbnail aad u qurux badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا سلامي صاحبي الملك سادومك ad ka joogtiin kusoo dhawaada YouTube channelkeena oo markale iyo muuqaal cusub oo aniga Maxamed Jamac sidoo kale YouTube ka daawanaysid oo Maxamed insha Allah maanta waxaan la wadaagi doonaa qaabkii loo sameyn lahaa thumbnail. waan ogahay dhamaantiin ama badankiin inaad garanaysaan yani waxa uu yahay thumbnail ama waxa uu qabto iyo shaqadiisa. laga yaabay inay jiraan dad aan garanayn yani thumbnailka waxa uu qabto iyo waxyaabaha ugu muhiimsan yahay uga mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee korniga YouTube-kaaga. ani yar fahansiino dadka aan garanayn yani waxa uu thumbnail jiro. laga yaabay inay jiraan xataa dad aan fahansanayn waxa uu tarayo waxa uu qabanayaba. yani yar aan ku istaagno YouTube thumbnailka waxa weeyaan waxa ugu horeeyay marka YouTube-kaaga gashid ama video ka soo horbaxo oo waxa sawirka ugu horeeyay aad arkaysid. haddii aan si kala u niraahno YouTube thumbnailku waxa weeyaan sawirka saaran yani video ka soo horbaxi doona balse marka YouTube-kaaga dhex gashid ama video-ga dhex gashid adan keenayna haba yaraatee sawirkaas inuu ku jiro YouTube aad daawanaysid. marka maanta waxaan kala wadaagi doonaa qaabka loo sameyn lahaa YouTube thumbnail adoo waliba ugu isticmaali lahayd ugu sameyn lahayd taleefankaaga. intii aan muuqaalkan ku dhex jirno waxaan isticmaali doonaa application lagu magacaabo Pixel Lab. runtii application-ka Pixel Lab wuxuu ka caawinayaa waxyaabo fara badan haday noqoto yani inaad ku samaysato YouTube thumbnail iyo sidoo kale Facebook cover art. waxaa jira casharaan ka sameeyay yani Facebook cover art-ga waxaan soo dhigi doonaa qaybtan sare ayaa cards-kan qaybtan sare ayaan soo dhigi doonaa marka halkaas ayaad ka gali doontaa. sidoo kale application-kan isticmaali doono waxaad ka dhigsan kartaa description-ka hoose ee muuqaalkan. yani haddii aadan garanayn description-ka hoose ee muuqaalkan waxaan ku soo dhigi doonaa isna video yani shaashadan ku soo dhigi doonaa marka halkaas ayaad ka dooran doontaa yani muuqaalka application-ka sida uu la degi lahayd. ugu horeyntii markaad soo furtay application-ka Pixel Lab wuxuu kugu soo baxayaa wajigan hore ayuu leeyahay kugu soo bixi doonaa. marka si aad kaga dhilatid calaamadda ama qoraalkan textiga meesha yaalo waxaad taabanaysaa calaamadda delete ayaa taabanaysaa. markaas aad taabat korkeeda waxaad ka sii dooranaysaa meesha ku qoran tahay okay. hadda waxa ujeedaa inuu naga tagay yani qoraalkii inuu yaalo xagan. si aan u bedelno size-ka yani wadarta hadda qayb thumbnail loogu talagalay maaha. marka si aan uga dhigno qayb thumbnail loogu talagalay waxaan sameyn karnaa laba hab inagoo maran. habka koowaad ee ka horeyno waxaan tagaynaa labadan calaamadood is kor saaran ee korkeeda taabanana. labada calaamadood markaad soo taabato korkooda waxaa ka soo doonaysaa meesha ay ku qoran tahay image size korkiisa ayaan soo taabanana. hadda waxaad u jeedaa in halkan ku qoran tahay custom iyo sidoo kale flag yaro xagan u jeeda flag yaro hoos u jeeda ayaa taabanaysaa korkeeda. markaad taabatay flag hoos u jeeda halkan waxaad ku aragtaa in option fara badan ku soo saaray marka ka rabtid ayaa ka dooranaysaa. hadda inagu waxaan u baahanahay YouTube thumbnail ayaan soo taabanana kadibna okay ayaan leenahay. hadda waxaad u jeedaa in isbedeshay calaamadii yani ay isbedeshay baad u jeedaa. sidoo kale habka labaad ee maraysid waxaa noqonaysaa inaad tagtid saddexdan dhibcood ee koonahan sare ku yaala inaad tagtid. markaad tagtidna aad kasii dooratid meesha ay ku qoran tahay image size yani image size halkan inaad kasii dooratid. halkaa kasii dooratid marka inaga hadda inoo waxaysan yahay inoo dhameystiran yahay marka waan iskaga noqonana. sidoo kale waxaan u baahanahay inaan soo qaadno yani inaan bedelno background-kan dambe yani color-kan nama qancin ka background-ka rabna inaan bedelno. waxaan taabanaa calaamadan color-ka ayaan taabanana. calaamada color-ka markaad taabatid waxaad u baahan tahay yani color-ka rabtid ayaad halkan ka dooranaysaa. haddii ay color-radan ku qancin waayaan waxaad taabanaysaa calaamadan plus-ka halkan ayaad rabtaa color-ka rabtid aad ka soo dooranaysaa. marka hadda anagu waxaan u baahanahay color-kaas ayaan u baahanahay inaan dhigno. marka calaamada saxa ayaan taabanana. sidoo kale haddaad u baahan tahay yani color fara badan oo isku jirjira inaad ka dooratid yani qaybtan ayaad ka dooranaysaa color isku jirjira haddaad u baahan tahay. anigu hadda color-kayga ayaan ku ceshanayaa calaamada saxa ayaan taabanaya. calaamada saxa markaad taabatid sidoo kale waxaad rabtaa yani waxaan rabnaa inaan sawir PNG ku soo darno yani halkan ku soo darno. marka waxaan taabananaa sidoo kale calaamadan tan ku xigta ee xagan ka xigta ayaan taabananaa. markaad taabatid meesha ay ku qoran tahay import ayaan ku dhufanana. import markaad taabatid sidoo kale waxaan taabananaa yani si uu inoo geeyo gallery-geena waxaan taabananaa saddexda dhibcood ee xagan ayaan taabananaa. sidoo kale gallery ayaan halkan kasii dooranana. gallery-geena markaan dooratid sawirka PNG-ga meesha ku yaala qof walba isaga garanaya marka PNG-ga soo qaadanana. tusaale ahaan hadda PNG-ga oo kale aan rabaa yani hadda muuqaal waxaa jiraan ka sameeyay sida PNG looga dhigo sawir ama background-ka dambe looga baabiyo. insha Allah waxaan xagan idin soo dhigi doonaa sare marka halkaa ka soo daawo muuqaalka hadaad u baahan tahay. waxaad booqanaysaa kaliya application la dhaho remove.png. marka halkaas ayaa dooranaysaa. marka calaamada saxa ayaan taabanana.
marka saa u jeedid yani sawirka hadda waxaad moodaa inuu soo yar weyn yahay markaan yar ayaan yareynaynaa marka waxaan dhigi doonaa yani qaybtan ayaan dhiganaa yani hadda waxaan rabnaa inaan color ku wareejino sawirka dhinacan saa ugu wareejinaan rabnaa waxaan u soconanaa adoo isla sawirka saa u kor taagan ayaan waxaan soconanaa xaggan qaybtan u soconanaa meesha ay ku qoran tahay stroke ayaan tegaynaa qaybtan ayaan tegaynaa stroke ku qoran tahay kadibna calaamadan enable ayaan taabanayna wadaarta hadda sawirka inuu isku wareejiyay haddii aad rabtid yani cabirka inaad ka bedeshay cabirka inaad waxay sidii yani inta stroke uu lekaanayo adigaa maamuli kara marka hadda waxaan u deysanaynaa intiisaas ayaan u deysanaynaa sidoo kale qaybtan waa kalaradii kalarka rabtid ayaa ka dhigan kartaa tusaalahaan naga cadaankeenaas ayaan u deysanaynaa sidoo kale waxaa jira sawir aan ku isticmaali doono yani thumbnailka si aan ugu sameyno sawirkan insha Allah waxaan soo dhigi doonaa description hoose muuqaalkan marka waxaan taabanaynaa meesha ay ku qoran tahay halkan ayaan iska taabanaynaa halka marka taabatid sidoo kale sawirkii ayaad ku soo daraysaa adoo isla calaamadii taagan ayaa sawirka ku soo daraysaa sawirka waxaad ka helaysaa description hoose muuqaalkan sawirkii hadana ayaan soo taabanaa sawirkan waxaan ka saxnay yani inaan dhinac madow ka dhigno ayuu noqonayaa marka saas kale ayaan deeninaa si aan calaamad inooga dhaqaaqin labadooda waxaan teganaa calaamadan ayaan teganaa sidoo kale labadooda qafulkaas yar ayaan laba jeer labadaba taabanana marka saa u taabato waxaad u baahan tahay inaad kusoo dartid qoraal sidoo kale waxaad tagaysaa qoraalka waxaa laga xukumaa meeshan yani xarafkan aada ay ku qoran tahay marka waxaad tagaysaa text meesha ay ku qoran tahay halkan ayaad waxa kusoo daraysaa qoraalka aad u baahan tahay halkan ayaad edit sii leedahay qoraalka waa iska delete gareynaysaa marka halkan ayaan ku qoranaa qoraalka aan u baahanay yani thumbnailkan inaan saarno marka qoraalka halkan ayaan kusoo qoranaa markaan rabtid yani inaan qoraalkayna ku dhufano waxaan taabanaa meesha ay ku qoran tahay okay marka wadaarta hadeerto qaybtan saan ayaa noogu soo baxday size-kan yareynanaa marka yani fartan hadeerayna ma qancin marka waxaan rabnaa farta inaan bedelno qaybta dhinacan ayaan u soconanaa waxaan kasi dooranaa meesha ay ku qoran tahay fontiga yani farahan waa isticmaali kartaa haddaad u baahan tahay balse aniga waxaan faraha igu jira ayaan isticmaali doonaa marka halkan ayaan fartan rabo ka dooranaya marka taas ayaan dooranayaa markaan taa doorano yani halka qaybtan aan ku hagaajinayna qaybtaas ayaan ku hagaajinayna marka qaybta markaan ku hagaajiyo waxaan tagi doonaa yani sidoo kale hadana waxaan sameyn doonaa yani text kale ayaan ku soo dari doonaa text kale isla qoraal kale ayaan ku qoranaa marka isna sidoo kale calaamada okay ayaan leenahay يعني isna sidoo kale waxaa naga rabaa fartii inaan ka soo bedelno sida u jeedii isna fartii waa ka soo bedelnay marka isna sidoo kale qaybtan ayaan hoos keeni doonaa yani hadda waxaan u baahnaa inaan bedelno colorka fartan aan qornay marka waxaan tegaynaa calaamada ay ku qoran meesha ay ku sawiran tahay calaamada colorka ayaan taabanana markaan saa colorka korkiisa u taabano yani midna kale waxaan rabnaa inaan intan thumbnail kaliya ay ku qoran tahay inaan yani calaamadeeda bedelno marka waad aragtaa qaybtan hoose ayaad ka maamuli kartaa inta rabtid xarfaha rabtid inaad yani color qoriyo u samaysid qaybtan ayaan wadanaa inta thumbnail ku qoran tahay ayaan sidoo kale calaamad colorka bedelid halkan colorka ka bedelan kartaa hadaa rabtid marka anigu yani colorkaasaan u deysanayaa yani colorkaasaan u deysanayaa sidoo kale waxaan sameynaynaa yani si aanan ugu noqon kaa sare ayaan koobiyeysananaa marka koobiyana yani qaybtan hoosaan keenaynaa edit ayaan leenahay marka wadaarta sawir hadeer yani yaro qurux badan thumbnail yaro qurux badan baan sameysanay yani muhiimadan waxay ahayd strokinka iyo qoraalka sida loogu qoray yani size-ka un bay ahayd inaan ku sameyno marka sidoo kale waxaan kasii dooranaa yani haddaa rabtid inaad kusoo dartid yani inaad sii qurqurxiso waa sii qurqurxsan kartaa marka waxaan kusoo dari doonaa yani calaamadan oo kale aan kusoo dari doonaa sidoo kale yana colorkeeda waa bedelaynaa thumbnailkan hadda inoo dhameystiran yahay yani intaan rabay inaan fahansiiyo ayaa inoo dhan
marka si aan u save gareynaa direct waxaan tegaynaa calaamadaas ayaan tegaynaa calaamada markaad tagto save as image ayaan leenahay save as image markaad tagto waxa kasoo dooranaysa meeshan ay ku qoran tahay isla custom ay ku qoran tahay flash ayaan xagan u jeedaa dooranaysa yani halkan waa quality-gii sawirka markaad dejisatay qaabku ku noqon la marka badanaa waxaan kula talinaynaa ka dhigatid alter ayaan leenahay oo ku maasantahay daawashadaada waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan la soo socotay ilaa bilowgii oo aadna soo gaadhay dhamaadka waxaan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga sharafta leh ee aad ku daawanaysay fiidiyoga waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh